Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan asxaabta ku xiran janaalka Ilayska Bulshada, kusoo dhawaada muuqaalkeenu maanta. Muuqaalkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay buuraha ugu halista badan ee adduunka. Buurta koowaad, Annapurna oo ku taalo dalka Nepal, waa buurta ugu dhimashada badan ee adduunka. Markii ugu horeysay waxaa fuulay Maurik Herzog iyo Louis Lechtner sanadka markuu ahaa 1950kii. waxaa mar kale fuulay Jesse Kutcher iyo Arthur Hezzer sanadii 1987. waxaa sidoo kale isku dayay 158 buurfuulayaal, waxaana ku geeriyootay 58 ruux. 2014 ugu yaraan 43 qof ayaa ku dhimatay roob watay baraf aad u weyn iyo daadad fara badan. waxay ahayd musiibadii safarka ugu dhimashada badnaa ee dalka Nepal. buurta labaad ee ugu dhimashada badan adduunka waa buurta lagu magacaabo K2 oo ku taalo dalka Pakistan. K2 waxaa markeedii ugu horeysay fuulay Achille Compagnie iyo Lino Leseldi sanadka markuu ahaa 1954. K2 waxaa si ballaaran loogu sharxaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu adag in la fuulo. waxaa isku dayay 284 buurfuulayaal, waxaana ku geeriyootay 66 qof. sidoo kale K2 waxaa loo yaqaanaa Savage Mountain kadib markii uu fuulay George Bell. waxa uuna yiri waa buur aad u halis badan oo isku dayaysa inay ku disho adiga. kadib safar uu ku tagay 1950yadii. Nanga Parbat waa buurta saddexaad ee ugu halista badan adduunka. markeedii ugu horeysay waxaa fuulay Hermann Buchholz sanadka markuu ahaa 1953. 16 Febraayo 2016 waxaa sidoo kale fuulay Simon Mora, Alex Texon iyo Alice Hadbara. waxaa isku dayay 287 buurfuulayaal, waxaana ku geeriyootay 64 ruux. sidoo kale buurtan waxaa loo yaqaanaa Killer Mountain. buurta afraad ee ugu halista badan adduunka waa Kanjunga oo ku taalo dalka Hindiya. markii ugu horeysay buurta waxaa fuulay Joy Brown iyo George Panda sanadii 1955. 1986 waxaa fuulay Jesse Kutcher iyo Krzysztof Wilig. waxaa isku dayay 209 buurfuulayaal, waxaana ku dhimatay 40 ruux. Manalsu waa buurta shanaad ee ugu halista badan adduunka, waxayna ku taalaa dalka Nepal. waxaa markeedii ugu horeysay fuulay Maciej Berbek Raiset Kachevsky sanadkii 1984. buurta Manalsu waxaa isku dayay 297 buurfuulayaal, waxaana ku dhimatay 58 ruux. muuqaalkeenu maanta wuxuu ku egyahay intaas. haddii uu ku qanciyo muuqaalka, like saar, sidoo kale la wadaag asxaabtaada, janaalkuna subscribe saar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.